السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتنا فيسبوك فريندز كنا waxaan leenahay maalin wanaagsan magsto adduunka dacaleyska ka joogtaan runtii waxaan rabaa waxaan inaan ka hadlo arrintii ayaamahan baraha bulshada aad u wareerisay aan rabo inaan runtii waliba qayb aan ka qaataan isla arrintaas sidii wax lagu damin karo ama odaga loola hadli karo arrimahaas noocaas ka qayb qaada laakiin arrintaas ay shaqeyn weyday runtii waxaan rabaa inaan ka wada tacsiyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed arrintii ceebta iyo fashilka ku noqotay arrintii ku noqotay Abuukar Cawaale oo runtii taariikh ahaan markaan dib ugu laabano Cawaale oo ah nin maarta Allah naxariistay muxtarim oo dadka Soomaaliyeed oo dhan aad looga yaqaano oo runtii caalamka Soomaaliyeed ee huwanahayna ninkii sameeyay ah Ilaahay u naxariisto baan leenahay Abuukar Cawaale oo dhawaan sheegay maartay intuu live ka soo galay magaalada Laascaanood la damcay in sharciga la horgeeyo oo waxyaabo su'aalo noocaas laga weydiiyo waxba aan problem dhibtoona aysan ka jirin marka runtii annaga ka Soomaali ahaan markaan ka hadalno ceebeen ku ahayd markaynu eegno dhanka reer mudugana reer mudug oo dhan hadda waa xanaaqsan yihiin ninkaas bay wada xanaaqsan yihiin ceeb runtii ku noqotay dhanka kale isagana waxa fashil gooni isaga laftigiisa ku noqday oo rabnay inaan laftigeeda ka hadalno arrintii isaga fulinimada ku noqotay waayo de nin geesi iyo qaadka u ololeeyo nin waxa loo qabay kunka iyo qofku isku mid u yihiin laakiin hadda waxaan maqlayaa habrihi oo dhan baa hadda ceyrsanayo habrihi baa raadinayo de qaadkii habrihi gadi jiray runtii waxay ku tahay isaga laftigiisa arrin ceeb ku aabaweeye oo habrihi waxay leeyihiin ninka nin balaa baan boo qabnay ninku waa show fulay marka waxyaabihii badnaay oo ceebta ku dhigay baan rabaa inaynu bid by bid u fiirino Laascaanood horta waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalo waxa weeye harti ma garan karo runtii waxa uu maartay gabdhaha waliba qaybtooda ay la hadleen banaanka taagayna war fur uu leeyahay furi ma uu baqayo wax ku kala fikraa ma garanay hadda ugu badato de waxa la geyn lahaa meel maartay xabsi iyo sharcigan la horgeyn lahaa de siyaasadda iyo waa kala duwanaan karaan ama aragtida waa lagu kala duwanaan karaa haddii maartay Laascaano iyo Garowe iyo Hargeysa iyo Muqdisho waa dad Soomaaliyeed marka waxa aad loo leeyahay runtii haddii Laascaano magaalo hartiya lagu xiray hargeysa lagu xiri lahaa ninkaas waxyaabihii dhici lahaa baa loo leeyahay runtii arrinkaas fashil weyn baa ka dhacay bal aynu ka hormarno arrintii ugu horeysay aynu wada fiirsanno anoo raba inaan kulli waxyaabihii ku fashilmay aan one by one idinku soo qaado hadalladiisii bal aynu wada dhageysano maxaan dhibay maradu iyo idinka dhicinimaya u daaye ma furayo ilaa waagu baryo oo mas'uuliyiintii halkaan keenay Cabdiqani aw Daahir baa soo socday suga 10 minutes miyad sugu weyde waxyaabihii kale oo runtii aad loola yaabo waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi British baan ah isaga oo maaragtay ninkaas Allah u naxariistay muxtaramka ahaayo Cawaale uu dhalay oo calanka Soomaaliyeed oo dhan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku faanto wuxuu yidhi British baan ah Britishna waa dadka maaragtay hartiga oo dhan ay ku faanaan iyo anaga ka saarnay Ingiriis wadankaano ka masaafurinay ka ceyrinay isagoo maaragtay marka faan ku dhiganayo wuxuu yiri waxaan ahay British anigu nin British aan ahay wadanka system ku soo galay oo sharciyan aan ku soo galay xaqna waxaan u leeyahay hadii dacwo la igu leeyahay inaan garbaxo subaxii tago laakiin runtii markii aan ka helay oo runtii aan isriinkii waa soo fiicnaanaya waa markii intuu isxanaajiyo geesinaba iska barbar caagadi gabageedu jijibiyay caagadi uu jijibiyay isagoo libaax iska dhigay bal hadda caagadi uu ku farabaxsaday inuu fiirino anigu waxaan ahay shakhsi u ololeeya qaadka doonaya inanka Somalilanderka oo walaalkeeya oo afka Soomaaliga ku hadlo Soomaaliyeed inaan u sheego talada iyo khatarta uu qaad ku leeyahay inaan inta Laascaano imaado la yiraahdo xaaraan ma oran kartid waa gaf bay ku tahay Laascaano wallahi marada ay ka dhacaysay billahi taala wallahi waa tii laga gabi jiray gooraan halkaan marano xaaladdu ay noo fiican tahay isla ninka waa soo fiicnaan gees buu iska dhigay raggaas waa iska dhicin doonaa buu haddii aad Laascaano joogtid haddii aad Ilaahay taqaanid haddii aad Ilaahay naxdin dadkii wareerleen tan oo kale lama arag haddii aad joogtid Laascaano haddii aad tahay oday Soomaaliyeed haddii la igu waxyeeleeyo
arnaceebe marka oohintii dhamaystay waadana neeftuur bilaabaya hadda bal dhegeysta ilaa idinku dhaarshay bal neeftuurka ka baxay ninkaas waxaa ka dareen markuu yidhi idaaya walaalayaal idaaya nafteeda u baqaya walaal idaaya dee idaaya walaal idaaya naftaydaan u baqayaa idaaya islaan dumaashidiisaa la soo kiciyey oo la yidhi kaale ninkaan la hadalsay tiri anaa kicinaya ha ku jabinina markaasaa loogu soo yidhaha markii xaafad kale laga keenay shukri weeye soo garamaysid ha yeeli maayo iyadii xitaa kadib waan ku maqlayaa aye abbaay wax ma kuu sheegaa waa aqaanaa abbaay ma yeelayo subxaan allah ugu dambayn odaygii waa lagu jebiyey sariirta hoosteedaana laga soo saaray cabaadkiisi markii la wadi waay xabsigii saldhigii inta loo soo dhawaday waa la hayn kari waaye markaasaa la yidhi toosu kaxeeyo garowa geey maarta waa niman dee tolo waa ka naxeen way mahadsan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin reer mudug dambana hayga hadho dee birtii ceelashadaan iyo geedahay ka boodaan iyo isagana waxaa kula talin lahaa warniyo bal orod waxa weeye waxa samaysaa bal meelaha iska aada meesha khatar wey Soomaaliya bal iska ilaaliyo mar dambe ha ku soo noqon habriiba oo dhan baa hadda aan laga celcelinaa ku weydiisanaya